isweydiinaynaa markaynu ka nimaadna qiimada sare aan nimaadna halkooda ugu hooseeya waxa keenay inay halkaa hoos uga dhici waayaan maxay tahay waxay culimada qaar leeyihiin laba sababood ama saddex sababood baa keenay meeshan inay gaadhaan kow midi waxa weeyaan bay leeyihiin masdaru talaqi xaggay wax ka qaadanayeen dadkaasi waxay wax ka qaateen il saafiya waan aje iyo dhooqa iyo dhibtoona lahayn il biyood oo saafiya macnaheedu ma waxa weeyaan wax kale aanay haysanin maya dunida falsafada waa yaaleen falsafadii xadaaradii romanska taallay xadaaradii griiga joogtay xadaaradii bershiyanka xadaaradii hindida xadaaradii jayniiska dunidu ma ahayn saa dadka badhmoodayaan meel madow oo imkuuna iftay ma ahayn dunidu weligeedba afkaartan iyo filosofiyada maanta ugu waaweyn ee weli layna daba wadaa aristotle iyo balatin iyo kuwa la sheegaya de warraggaa hore uun ma aha kuwa iminka jooga dunida cuquul iyo afkaar iyo aaraa'iba way taalle laakiin nebi maxamed markuu rabbaynayay wuxuu ku rabbeeyey inay ilaahay keliya kala kulmaan laba wixii ku saabsan caqiido iyo values qiyam iyo tashriic inay rabbi kala kulmaan wixii maado iyo idaaraad iyo aqoon adduunyo ku saabsanna bini aadamku u wadaagaya inay aadanaa kale ka qaataan wixii la dheer yahay taasaa waxay keentay markay joogto mas'alada valuega iyo caqaa'idda iyo sharaa'icda ku saabsan wuxuu nebigu arkay maalin cumar bnu khataab baa nin yahuudiya yidhi waa bal waraaqii soo qor kitaabkiina waxyaabaha waa wanaagsane ku qoran dabeetana waraaq buu mid u qoray riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyiin waraaq buu helay cumar oo waraaq akhrisanaya buu nebigu arkay markaasuu yidhi waa maxay waxaad akhrinaysaa markaasuu wuxuu yidhi waa qoladan yuhuudeed kutubkoodii weeyaan wax ka mid ah amutahawikuuna fiiha buu nebigu ku yidhi oo adna miyaad wareersantay buu ku yidhi iyagu wanooga waa wareersan yihiine adna ma mutaxayir adna miyaad wareersantay buu ku yidhi waar waxaan idinla imi buu nebigu leeyahy baydaa'a naqiya diin baan idinla imi cad oo saafiya ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi hadduu nebi muuse noolaan lahaa kitaabkii towraad oo la qalqalday oo la inxiraafiye iska dhaaf nebi muuse hadduu noolaan lahaayoo maanta joogi lahaa uma bannaanaateen inuu aniga ay raaca mooyaane wax kale buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa nebi baa soo degi doona isaga dabadi nebiyullaahi ciise oo cirka la qabadsiiyaa iman doona laakiin muxuu raaci doonaa sharciga nebi maxamed buu raacaya uma bannaana buu nebigu leeyahay hadduu xataa joogo muuse maa xalla lahu ilaa an yatabicanii aniga inuu iraaco mooyaane wax cid kale uma bannaanayn buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam su-aashu waxay tahay markaa innagu xaggaynu wax ka qaadanaa manaahijteenna cilmiyeed iyo aqoomeed iyo xaggaynu ka keennay waxaynu leenahay haqaafaadkeennu waxaynu qur-aanka ka qaadanaaba yar waxa ugu badan waxaynu ka qaadannay maxay cid kaleaynu ka qaadanno reer bari iyo reer galbeed iyo haqaafaadka dunida yaalla xadaaraadka kale iyo aqoontoodii waxaasaynu isku rarray haddaynu rabno markaa meeshoodiioo kale inaynu ku dhowaanno waxaynu u baahanay manaahijteenna inaynu dib u safayno min ayna natalaqi xaggaynu kala kulmaynaa diinka xaggaynu caqiidada ka qaadanaynaa xaggaynu valuega ka qaadanaynaa waxaynu kaloo u baahannay xataa waxaynu akhrinayno xataa turaadka islaamiga ayaa tasfiya u baahan israa'iiliyaad badan iyo wax daciifa iyo khuraafaad badan baa la qoray xataa kaas baynu u baahannay inaynu hubinno oo ku hubinno ma yahay qur-aankii alla soo dejiyey tafsiirkiisani tafsiir saxa ma yey waxaanaad sheegaysaa xadiidkii nebi maxamed oo saxiixa ma yey mise wax wadaad iska sheegay uun idan awal khudwa aynu u baahannay waxa weeyaan meeshaynu wax ka qaadanaynaa inay saafi noqoto aaniyan mar labaad waxaynu leenahay oo innagu meeshoodii u gaadhi weynay manhaju talaqigaa kala gedisan iyagu waxa ay qaadanayeen waxay u qaadanayeen inuu yahay maxay camalkoodii yoomiga ahaa that means wuxuu ahaa timetablekii maalmeed ay ku dhaqmayeen sidaa awgeed iskumabay badin jirin
waa kii laga warinayo inuu lahaa midkaayo 10 aayadood baanu qaadanaa 10ka aayadood baanu xifdinaa oo macnahooda barannaa oo ku dhaqannaa markaasaanu nebiga ku soo noqonnaa calayhi salaatu wasalaam marka iyagu qaabkay wax u barteen wuxuu ahaa qaab camaliya waxaan uu baranayaa inuu nolosha ka mid noqdo practical noqdo innaguna badanaa waxaynu u barannaa qaab lilistimtaac iyo lithaqaafa macluumaadkaaga inaad biiriso badisid in la yidhaahdo waa doctor hebel iyo waa magister hebel buu qaatay iyo yacni macluum garashadaadu iyo wax madaxaaga ku jira inay bataan si awgeed waad soo fadhiisan dariska waad dhegaysan waad iska tegi waad soo fadhiisan waad dhegaysan haantaadaad dhaansan laakiin dhaqankaagu allah u sahlo waxaanaad guratay miyuu yahay mise tii tolkaa iyo reerkiinaad ku dhaqmaysaa tii dowladdiina iyo wixiinaad ku dhaqmaysaa tii bulshadiina iyo waxay weynaynayeen baad ku dhaqmaysaa mise waxaanaad barataad ku dhaqmaysaa that's the question inagaa weli taagan haddiiba macluumadaad qaadatay macluumad saxa tahay practical ma isu beddeshaa iyaga macluumadooduna saafi bay ahayd oo nebi maxamed afkiisay ka qaadayeen calayhi salaatu wasalaam marka labaadna wuxuu ahaa manhajkoodu manhaju litanfiid talaqigoodu wuxuu ahaa inay fuliyaan midkoodna markaa awaamirta iskuma badinaynin waayo wuxuu arkayey wuxuu fulinaya inay tahay masalada saddexaad waxay ku tilmaamaan waxay idhaahdeen iyaga iyo innagu waxaynu ku kala gedisannay iyagu qofkoodu markuu islaamo wixii ka horreeyoo dhan shakuu ka qabay saa daraaddeed wax kasta uu jaahiliyadiisii samayn jiray wuu iska hubin jiray in islaamka la ogoliyo inaan la ogolayn ilaahay rasuulkiisa saas sax ma tahay saama la ogoliyo innaguna wixiina waad baranaysaa waxaaga horena waad ku raraanaysaa iyagu waxay leeyihin wuxuu ahaa koodu attakhalli qabla taxalli bay yidhaahdaan inuu iska rogo wuxuu sitay oo dhan inta aanu marada nadiiftaa gashan haddaad dhar cusub soo qaadato maxaad u baahantahy haddaad maanta oo dhan soo shaqaynaysay oo aad xamaal ahayd ama waddada dhisaysay ama kan dee boodh iyo siiga midhan baa tahay laba dharoo cusub markaad soo iibsato ma adigoo waxaagii sitaad ku jufi mise horta intaad xamaamka gashaad intaad isnadiifiso ayaad dharkaaga fiican xidhan doontaa loojigu wuxuu keenayaa intaad isnadiifiso inaad maxay dharkaaga kala xidhato saasay ahaayeen dadminis markay islaamaan wixii hore ay haystay way ka tegayeen waxay u baxayeen inay qaataan waxa cusub ee diintu ay sheegaysay taasaa waxay ka dhigtay jiil ama fac ama koox taariikhda bini aadamka mudnaan gaara ku leh tusaalayaal baan idin siinaya haddaba mudnaantooda tilmaamayay dunidaynu maanta joogna waxaa la yaqaanaa ama sidii ibnu khalduun iyo ay qori jireen waxaa la og yahay dadka xadaaraadka maadiga ee sarreeya leh inta badan inay dadka kala jebiyaan mentale ay u jebiyaan saxaabadii nebi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macallinkooduna nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayeen ay rumaysayeen inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkanina inuu ilaahay ka yimi saa daraaddeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo caqaa'idda iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida waxbari lahaa markay see birta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ayay bershiya istileen bershiya waa dowlad qadiim ah waa dowlad muddo soo jirtay waa dowladdii jebisay markaa dowladdii romanska ahayd waa dowlad kaljar maamul leh oo kala dambayn leh oo ciidamo leh waa dowlad xadaaro leh oo thaqaafo leh waa dowlad qaab maamul leh muslimiinta markii dagaalku cabbaar socday ayay waxay damceen inay wadahadal la furo wadahadalkii waxay codsadeen in loo soo diro cid muslimiinta ka mido ay wada hadlaan ninkii boqorka markaa haystay ee ciidamadan hogaaminaya wuxuu ku talagalay nimankan inuu jebiyo maskax ahaan
markaa meel buu goglay waxaa la dhigay kaarbadyada cascas dabeetana sariirtii boqortooyadana meel baa la dhigay sariirta boqortooyaduu fuulay saddex saxaabi mid baa loo soo diray markaasuu la hadlay wuu noqday war bal mid kale ii soo dir buu yidhi mid labaad baa loo soo diray wuu noqday war bal mid kale ii soo dir buu yidhi mid saddexaad baa loo soo diray saddex saxaabi baa kolba mid u yimi xudayfa iyo mugiirat bnu shucb iyo ribciy ibnu caamir saddexdaba saddex qiso cajiibu kala kulmay laakiin midun baan u socdaa ribciy ibnu caamir baa u yimi waa nin intaa dagaal ku soo jiray maryaha ilhaylan iska wata faras yaroo gaaban wata hubkiisii iska xidhan soo galay dabeetana waxay idhahdeen hubka dhig madaxda loolama tagee dee madaxda anigu uma imana isagaa ii yeedhay buu yidhi haddaan rabtaana saydaan ugu tegay haddii kalena waa iska noqon waa loo sheego waxaa la yidhi ninkii saasuu leeyahy bal soo daaya buu yidhi wuu soo socday kaarbadku iskaga soo dul socday faraskiisii yaraa ee gaabnaa dabeetana barkimooyinka ka miduu ku xidha dabeetana wuu u soo galay markuu u yimi ayuu ninkani wuxuu ka fakeraya wuxuu rabaa inuu mentali ninkan jabiyo war haddii maxaa idin soo saaray buu leeyahay haddii abaar iyo dhul aan waxba oolin iyo kanaa ka timaadeen xoolaanu idin siinaynaa waxan baanu idin qabanayna kan baanu idin qabanayna kan ee waddankiinni ku noqda buu u tilmaamaya marka maxaa idin soo saaray baa la weydiiyey ribciy ibnu caamir wuxuu leeyahay allahu ibtacatana linukhrija man sha'a min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxdah wa min jawri aladyaani ila cadli alislaam wa min diiqi addunya ila sicati addunya waalaakhira wuxuu leeyahay ilaahay baana soo bixiyey waxaana rabbi noo soo bixiyey dadka cidduu doono inaanu ka saarno addoonsigay dadku is addoonsadaan oo freehead dadka inaynu xorriyad u saarno dadka inay xor ka noqdaan bini aadamku inaanu is addoonsanin baana loo soo bixiyey buu yidhi ilaahayoo qura in dadku addoommo u wada noqdo waxaanu soo baxnay buu yidhi inaannu dulmiga diimuhu dadka ku hayaan ka saarno cadaaladda islaamka u bixinno waxaanuu soo baxnay buu leeyahy cidhidhiga adduunya inaannu idinka saarno oo adduunyada ballaceeda iyo aakhirada ballaceeda idin geeyo nin kale cidhidhi adduunyaanka haa saarayaa laba goo yaryar buu sitaa iyo maxay faras yaroo gaaban u wustaa ninkuu cidhidhiga adduunye ka saarayaana waa ninka kan meel kasta gogladay laakiin wuxuu arkayaa bimanduurihi maca haada waxaasoo dhan uu haysto inuu cidhidhi ku nooliyey marka waxaan kaa saarayaa buu leeyahy cidhidhiga adduun oo waxaan kuu saarayaa maxay ilaa sicatiha faariqa maadiga u dhaxeeya intuu leekaa laba masalaan idiin tilmaami midi waxa weeyaan axadu saxaaba qolaa daqiiq yaroo farsamaysan bay cuneen markaasaa wax saxaabaa la weydiiyey sidaa u cuni jirteen idinku horta daqiiqda dabeetana wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaqiya min xiina ibtacahahu allahu xataa qabada ilaahay rasuulkiisu daqiiqdan saafiga ah yacni markii la tumay la farsameeyey deetana la shaandheeyey deetana budadoo qudha noqotay daqiiqdaa budadee keliya ah nebi maxamed ishiisaba ma saarin buu yidhi sidii ilaahay u soo diray daqiiq saafiyaba nebi maxamed ma arag markaasay waxay ku yidhaahdeen oo miyadan cahdigii nebiga munkhal miyadan haysan buu yidhi munkhalku waa shaandhada baashan wax lagu shaandheeyo miyadan manaakhil haysan baa la weydiiyey markaasu wuxuu ku yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam munkhala nebi maxamedba shaandha ma arag hadda waa shaandhadaa yar wax ka weyndaaye shaandhaba nebi maxamed ma arag buu ku yidhi markaasaa taabicigii wuxuu yidhi oo haddaasaa daqiiqda u cuni jirteen sideeba wuxuu u samaysan jirteen nimankii nan kule shaandhaba maanaan haysan jirin markaasuu wuxuu yidhi shaciirka intaannu tunno oo dabeetana haadinoo afuufno sidii reer baadiyaheennuun fo intaannu nidhaahno ayuunbaa wixii baalina duulaan wixii soo hadhana waa sariid baanu ka dhigan jirno dee waa cuni jirnay buu ku yidhi yacnii raggan dunida sicadeeda dadka u sheegaya shaandhada daqiiqda lagu shaandhaysta maanan arag buu leeyahy